muddo 2 sano oo taagnaa khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo labada gudoomiye xisbi khaasada xisbida kulmiye wadaniga cud ayaa maanta heshiis taariikhi lagu saxay madaxtooyada Soomaaliland madaxweyne Biixi gudoomiye Cabdiraxmaan Mikayle jooga iyo gudoomiye Fasax Waraab ayaa saxay heshiiskaasi waxaan la joogaa gudoomiye xisbiga mucaaradka wadani gudoomiye muddo badan khilaaf adag oo dhaxeeyay idinka madaxweyne maanta heshiis waa saxeedeen heshiiskaasi nuxuraan muxuu noqonayaa بسم الله الرحمن الرحيم horta cid kastoo heshiiska ka soo shaqeysay waanu mahadnaqaynaa ugu muhiimsanaa danjiraha dalalka Yurub ambassador Nicholas iyo cidii kale ergooyin guddiga dhexdhexaadinta iyo shakhsiyaadkii kale badnaa ee isku dayay hawsha khilaafka iyo doorasho la'aanta in la soo afjaro waxa laga heshiiyay maanta arrintii doorasho la'aanta waxaana lagu heshiiyey heshiiskaasi nuxurkiisu ahaa in la qabto doorashadii golaha wakiilada iyo doorashadii golaha deegaanka sanadkan aynu ku jirno 2020 arrintii ugu muhiimsanayd ee muranku inta badan ku dhisnaa waxay arrintii guddiga doorashooyinka qaranka arrinta waxa laga heshiiyey in waxa wax laga soo qaatay go'aankii odayaasha labada guddigii hore in la soo celiyo marka waxa lagu dhexdhexaadiyay axzaabta iyo madaxweynaha in guddigii hore ee doorashooyinka ee waqtigoodu dhamaaday la soo celiyo laguna daro 3 qof oo caalami ah 10 qof ay qabtaan doorashada guddiga hadda jiraana awoodii ay ku wareejiyaan in guddidaasi uu qabto doorashooyinka guddiga waxay noqon doonaan guddi qabta iyagu doorashooyinka awoodiina la siiyo maamulka doorashooyinka iyaga yeelanaya diiwaangelinta iyaga yeelanaya arrimaha miisaaniyadda iyo shaqaalaha iyo qoristooda iyaga yeelanaya goobaha iyo maamulkooda iyaga yeelanaya marka heshiiska ka arki doontaan faahfaahinta inta ka badan guddidii hore guddidan dad jirta ku dhawaaqista natiijada ayay yeelan doonaan wixii shaqo ay qabtaanna guddiga farsamo waxay u gudbin doonaan guddiga joogta hadda sidaasa ay noqotay in ilkana lagu badbaadiyo waatay mid gudoomiye dadku waxay isweydiin karaan laba komishin soo wada shaqeyn karaan miyaan khilaaf hor ka iman karin ilaa waa laba hadii loo baahdo mid kamid ah la bedelo dadku waxay ka qabaan walaac weyn arrinkaasi maxaad ku leeyahay de markii hore soo jeedintii odayaasha waa ka horeyseen laakiin de markuu muran dhasho xal baa la raadiyaa marka guddigani waxay noqonayaan guddiga maamulista doorashooyinka ayay noqonayaan magacoodu commission del baarlamaanka la geynayo la ansixinayo maaha waa guddi hawshaas u xil saaran waajibaadkoodu hawshaas u yahay doorashada inay qabtaan tahay natiijada doorashada soo saaran tahay waa mid gudoomiye ilaa shalay adiga madaxweyne Biixi iyo Faysal Waraab intuu mashquul baad haydeen oo hawl adag baad qabateen markaad soo qiimaysay jawigii shalay ilaa maanta maxaad isleedahay Soomaaliland doorasho ku kuli kartaa ma dhici kartaa sanadkan doorasho noo qabsanto haddii dee ay jirto niyadii in doorasho lagu qabto way qabsoomaysaa wax kasta oo imika dee obstacle weyn oo hadda hor taaganna anigu ma arko waxaana lagu qiyaasayaa guddigaa hore inay awood u leedahay inay 7 bilood ilaa 9 bilood ku qabato doorashada gudoomiye ugu dambeyn dadku waxay isweydiin leeyihiin Soomaaliland 12 sano ka hor riwaayadii la daawan jiray siyaasadda ayaa dib u soo noqotay oo beesha caalamka ayaa soo fargelisay marka in nidaamkii dimuqraadiyadeed ay beesha caalamka soo fargeliso sida kula muuqata de runtii waxa fiicnaan lahayd inaynu inagu arrimaheena ka heshiino laakiin inay la heshiisiiyo may ahayn laakiin nasiibku waxa weeyaan inaynu heshiinay hadda oo aynu ku heshiinay inaynu doorashadii qabanno
beesha caalamkuna aad bay ugu mahadsan tahay dee roolka ay ka qaateen iyo heshiiska ay iyagu soo daraafgareeyeen ama dee soo curiyeen aad bay ugu mahadsan yihiin hawsha ururada maxay ku dhawaaqay halkay ku dumisay dee taasi daaqaday ka baxday doorashadii baa la qabanayaa deegaanka doorashadii baarlamaankana waa la qabanayaa marka taasi waxaan umaleynaya su-aal meesha ku jirtaba ma hadda fariinta ugu dambeysay shacabka somaliland iyo taageerashada gaadhsiin maxay noqonaysaa taageerayaashii iyo dadka shacbiga somalilandba waxaa leeyahay maanta guul bay u tahay somaliland iyo xisbiga wadani iyo xisbiga ucid iyo ka kulmiye iyo shacbiga somalilandba in doorashadii aynu qaban kari weynay aynu ku dhiirano inaynu qabanno marka aynu doorashadii u diyaar garowno waxaan weliba fariin gaara u dirayaa dulmanayaashii doorashada oo hadda dadkii sugayay dhowr iyo 10 sano inay soo diyaar garoobaan hawshaasina waxa lagu heshiiyey heshiisku inuu dhaqangel yahay maanta marka maanta laga bilaabo hawshu way bilaabmaysaa insha Allah